Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Akhyaarta hawada aan ku saaxiibnay ee ku soo dhawaada warka caalamka. Wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee u fadhiya Soomaaliya. Isbuucan horaantiisii madaxweynaha dowlad gobol Hebel oo ka tirsan Soomaaliya ayaa isna la kulmay. Isbuucan horaantiisii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa la kulmay isla safiirka qaramada midoobay u fadhiya ee Soomaaliya. Safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa u meerinaya madaxda Soomaaliyeed masiirka iyo aayaha ummadooda iyo siday u hogaamin lahaayeen. Cajiib 10 milyan oo Soomaali ah oo ku dhaqan daafaha dalka iyo dibaddiisa waxa ay leeyihiin hogaamiyayaasha 6 dowlad goboleed Somaliland oo gooni u goosad ah iyo madaxweynaha jamhuuriyadda. Intooduba waxa ay u dhaarteen in ay Soomaali u hogaamiyaan sida u fiican ee sida dalalka caalamka loo hogaamiyo. hase yeeshee nasiib darro maalin kasta waxa ay sida kacbada isugu daba mareeyaan xerada xalane ee ku taala duleedka Muqdisho iyaga oo maalin kasta ka soo cumreysta xarumaha qaramada midoobay looguna soo meeriyo waajibaadkooda shaqo ay ummadooda ku hogaamin lahaayeen. balka waran dadka Soomaaliyeed ee ku qarwaya inay leeyihiin hogaamiyayaal wanaagsan maxaa ku yiraahdaa 5 sano kadibna loo doorto madaxweyne jamhuuriyadeed la soo dhiso xukuumad iyo 2 gole ee baarlamaan iyo fulin ah ayaa ku riyooday inay leeyihiin dowlado. hase yeeshee xaqiiqda jirta waa tan ee taabso kuna qanac haddii aadan ku qancinna iskaga noolow riyadaada waayo waan ku wada noolnahay riyada ah inaan nahay dal jira oo dowlad leh. haddaba xaqiiqda jirta ayaa waxa ay tahay in dhammaan waxyaabaha ay fulinayaan ee loo yaqaano qorshayaasha dowladda hortabinta u leh inay ka mid yihiin mashaariicda UN ee Soomaaliya ka fuliso. haddaba mashaariicdaasi waa kuwa positive ah iyo kuwa negative ah. kuwa positive ka ah aan ka qaadano. kuwa positive ka ah waxaa ka mid ah hanaanka dowlad dhiska Soomaaliya, hanaanka deyn cafinta Soomaaliya, hanaanka la dagaalanka musuqmaasuqa, hanaanka joojinta gudniinka fircooniga, hanaanka joojinta askareynta caruurta, hanaanka kaalay dalka ma ayaga iska leh mise Soomaaliba iska leh. dalka ma adiga iska leh mise aniga iska leh. waad maqashaan filayaa heestii wadaniga ahayd dalka soo anigu malihi dadka soo anigu malihi. su'aasha jawaabteeda iyo waliba heestii caan baxday ee waa su'aal da'weyn ee dalka yaa iska leh ayaa looga baahan yahay dadka Soomaaliyeed kuwa ku qarwaya ee ku calwasaadaya in ay dowlad leeyihiin oo madaxi matasho iyo madaxda maalin kasta u cumreysi taga xalane labaduba aan ka soo gudubno. dalka Soomaaliya waxaa jooga in ka badan 80 ama 70 dowladood oo caalamka ah kaba soo tag wax kale xitaa Brazil, Panama, Costa Rica, wadamada reer Latin America ciidamo ka socdo ayaa xeebaha Soomaaliya joogo waayo waxa ay ka tirsan yihiin howlgalka NATO ee ilaalinta biyaha caalamiga ah. howlgalka NATO ee ilaalinta biyaha caalamiga ah waxaa la yiri waxaa lagu difaacayaa maraakiibta martabadaha Soomaaliya oo waxaa laga ilaalinaa burcadbadeed. mashruuci burcadbadeeda goorma ayuu dhamaaday xagaas uu ku dambeeyay. mashruuci burcadbadeeda halka uu ku dambeeyay iyaga ayaa la weydiinaya oo sidoo kale horey nooga jawaabay mashruuca la dagaalanka argagixisada halka uu ku dambeeyay kadib dagaalkii Afghanistan. haddaba inta muwaadiniinta Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedba masiirkooda looga soo meerinaya Geneva iyo New York dowlad ma noqonayno dalna ma dhisanayno. maxaana la gudboon dadka Soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin hogaamiye fahma waxa hooyada masaakiinta ah ee kaamka degan iyo hooyada masaakiinta ah ee baadiyaha ariga ku raacanaysa ee gaajada iyo oonka u dhimanaya ay u baahan yihiin inta soo wareysta iyaga waxa ay u baahan yihiin u qabta haba yaraadaane qadarkiisa intii la eg. laakiin inta caalamka loo baryo tagayo ogow mashruuca deyn cafinta ma dhamaanayo, mashruuca dowlad dhisidda Soomaaliyana ma dhamaanayo. maalinba dalaal ayaga u shaqeeya oo shaqooyin waajibaad oo cayiman ay u dirsadaan ayay noo soo diri doonaan. dalaalkaasina isla ayaga ayuu u shaqeyn doonaa ee adiga ay dhageysanaya iyo aniga ku waramayaba nooma shaqeyn doono dal iyo dadna nooma hogaamin doono ee ogow waa nin la soo dirsaday oo leh waajibaad iyo shaqooyin gaar ah yacni waxa loo yaqaano specific jobs. maxaa yeelay dadka HR-ka iyo maamulka aadka u barta ayaa yaqaano waxaa jira waxa la dhaho job duties and job responsibilities. waa shaqooyinka aad qabanayso sidaad u qaban lahayd wixii lagu ogol yahay inaad qabato iyo waxa ka mamnuuca inaad qabato. haddaba ku dheeraan maayo barnaamijkan waxa uu ka mid yahay barnaamijyada mindset-ka ah ee aan ku soo gudbin doono ummadda media. bartaan adiga ayaa iska leh aniga ayaa iska leh waan wada leenahay waa dhaxal ummadda Soomaaliyeed leedahay. haddaba waxaan ka codsanayaa inaad si share gareyso muuqaalkan si uu gaaro saaxiibada Soomaaliyeed ee hurdaya.
mowduucan haddaba maxaa igu dhaliyey mowduucan waxaa igu dhaliyey kadib markii aan arkay haweeney u dhalatay wadamadan Afrika oo qaybsanaha midowga Afrika ee u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa ay la kulantay gaashaandhiga ee Soomaaliya. Ninkan horta waa nin dhalinyaro ah, I think magaciisa waxaa la dhahaa wasiir madaxa ifurana oo aqaana aniga, laakiin magaciisa adinka ay soo sheegi doona Hebel Maxamed Nuur, Cabdulqaadir Maxamed Nuur, exactly Masar Cabdulqaadir Maxamed Nuur wuxuu kamid yahay wasiirada dhalinyarada ah ee aan ugu hanweynaa dowladda Soomaaliyeed. Hase yeeshee wuxuu garan waayay in islaan ka socota midowga Afrika uu qaabilo uu la kulmo agaasimihii wasaaradda. Yes, of course, asaga wuxuu qaabili lahaa oo u dhigmay dhigiis ah wasiirka gaashaandhiga ee wadan ka mid ah midowga Afrika ama wasiirada gaashaandhiga ee midowga Afrika oo wada socda. Laakiin ma fiicneen haweeney safiir ah oo ka socota urur goboleed ama urur qaaradeed iska caadi ah ay soo direen. Maxay Afrika maanta nagu saacidaa? Wax kale naguma saacido. way noo soo shaqo tageen ciidamada Burundi iyo Uganda ee qaata lacagaha UN-ka ah ee bilaacadada ah xamarna ku caba qamriga raqiiska ah. Inta ka badan maraba in aan ku sii fogaado, laakiin this is a mindset broadcast. barnaamijkan waan ka hadli doonaa qaybo badan ayuu leeyahay. Haddaba qaybtii koowaad waxaan uga hadalnay joogitaanka UN ee Soomaaliya. La soco qaybaha dambe. Mahadsanid.